habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin saraakiisha Indonesia ayaa sheegaya in aanay filayn in ay helaan dad ka badbaaday diyaarad rakaab oo 889 qof oo ku dul burburtay badda wax yar kadib markii ay ka kacday garoonka Jakarta wararkii ugu dambeeyay ee shilkaasi diyaarad ayaanu idin haynaa qodobada kale ee caawan waxa kamid ah madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa ku daahfuray magaalada Istanbul garoon diyaaradeed kii ugu ballaarnaa dunida bila ayay qaadanaysaa inuu hawl galo garoonkan oo muran badan uu ka taagnaa bandhig wacyigelin oo ku saabsan dhibaatada qabyaaladdu ay leedahay oo maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay waraysi ayaanu idinkaga haynaa fanaaniintan waxa ay u heesayaan ciyaartooy Soomaali ah oo Yurub ka tagay oo xalay kulankii ugu dambeeyay kooxda horseed kula yeeshay Muqdisho qaybta ciyaaraha ayaad ku daawan doontaan kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaan ugu bilaabaynaa diyaarad rakaab oo siday in ka badan 180 qof ayaa maanta badda ku burburtay waxay kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha ee caasimadda Indonesia ee Jakarta waxaana diyaaradda oo nooceedu ahaa Boeing 737 Max 8 oo cusub ay ka baxday Jakarta markii ay saacadu ahayd 6:20 daqiiqo oo ah xilliga subaxnimo ee Jakarta waxay ka dhaqaaqday iyadoo ay maalin cad ay tahay halkaasi isla markaana ay hawadu aad u wanaagsanayd hase yeeshee muddo 10 daqiiqo kadib ayay shaqaaluhu codsadeen in ay dib u soo noqdaan qalabka sida joogtada ah lagula socdo ayaa muujinaya in ay ku adkaatay duulista hawada sare waxaana muuqaaladani ay muujinayaan oo ay tahay halkan xarunta masiibada waxa ku sugan qoysas walwal badan ay ka muuqato oo yimid halkaasi si ay u helaan macluumaad ku aadan qaraabadooda madaxweyne Joko Widodo ayaa isku dayay inuu u xaqiijiyo maamulka in uu samaynayo wax walba oo ay awoodaan haddaba hawlgalka badbaadada ayaa waqti badan qaadan doona hase yeeshee baaxadda masiibadu ay leedahay waa mid si degdeg ah u soo muuqatay markiiba maxamed cabdi xaraare ayaa ka waramaya diyaaradda noo burburtay waxaa saaraa in ka badan 180 qof qaar ka mid ah qoysaskooda ayaa ku soo qulqulaya garoonka diyaaradaha Jakarta iyagoo raadinaya macluumaad ku saabsan qaraabadooda mas'uuliyiinta ayaa si dibadda u saaraya dhanka baddana goobta shilku ka dhacay waxaa tuban qashin googo'an shilka ayaa dhacay maalin cad iyadoo ay hawaduna wanaagsanayd qaar ka mid ah burburkii ayaa la aruuriyey waxa ay u muuqataa inuu ahaa shil degdeg ku dhacay waxaa sidoo kale jajabka la helay ka mid ah alaabo ay dad lahaayeen iyo qaybo ka mid ah diyaaraddan ayaa ku burburtay meel biyuhu aanay sidaa u qoto dheerayn badmaaxayaasha ayaa isku dayaya inay helaan macluumaad shirkadda duulimaadyada ayaa sheegtay in diyaaradda la soo wariyey inay cillad ku jirtay duulimaadkeedii hore duulimaadkii ugu dambeeyey waxay ka soo duushay Baali waxaa la xaqiijiyey in ay duuli karto waxaa jiray warbixin sheegaysa in ay cillad ku jirtay waxaana arrintaasi u xallinay si waafaqsan nidaamka ay dejiyeen soo saarayaasha diyaaraddani waxay burburtay 13 daqiiqo kadib markii ay duushay qalabka sida joogtada lagula socdo ayaa muujinaya inay ku adkaatay duulista sare shaqaalaha waxaa loo sheegay inay garoonka dib ugu soo noqdaan diyaaradda burburtay waxaa maamulayay shirkadda Lion Air waa shirkadda ugu weyn ee dalka Indonesia ee duulimaadyada qiimaha jaban bixisa ilaa 2016kiina waxa ay mamnuuc ka ahayd inay duulimaadyo ku samayso hawada Yurub sabab la xiriira iyadoo lala xiriiriyay inuu liito nidaamkeeda badbaadinta inkastoo arrimahaasi wax badan laga qabtay ninkani waxa uu sheegayaa qiso cajiiba waxa uu ku qornaa inuu diyaaradda raaco laakiin wuu ka soo daahay kadib markii uu gaariga saxmad la galay 6 ka mid ah saaxiibadiisa shaqada ayaa saarnaa diyaaradda badda waxaa dul sabaynaya qashin iyo biro googo'ay ilaa iyo hadda lama hayo calaamad muujinaysa dad badbaaday in ka badan 9 saacadood kadib markii uu shilkani dhacay rajada laga qabay in qof nolol lagu helo waa ay sii yaraanaysaa
bal markana dhinaca iyo Turkiga garoonka diyaaradaha ee wadankaasi ee Istanbul ayaa waxa uu noqonayaa mid kamid ah kuwa adduunka ugu weyn maanta ayaana si rasmi ah loo furay waxa uu noqonayaa saldhigga ganacsi ee dalka ugu weyn isagoo bedelaya garoonka Ataturk la yiraahdo dhowr kamid ah mas'uuliyiinta gobolka ayaa ka qayb galay xafladda furitaanka inkastoo xafladda la qabtay haddana waxa garoonka si rasmi ah uu u shaqayn doonaa dhamaadka sanadkan aynu ku jirno haddaba dhismaha garoonkan cusub ee Istanbul waxa uu soo maray dib u dhacyo iyo shaqo joojin shaqaaluhu ay sameeyeen iyagoo ka cabanayay xaaladaha shaqo ee markaasi halkaasi oo liita Suhayb Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa waxa ay noqonaysaa xarun ay ku kulmaan duulimaadyada Aasiya, Yurub iyo Bariga Dhexe waxa laga dhisayaa 76 kiiloomitir oo iskuweer ee dhanka bari ee magaalada Istanbul madaarkan ayaa loogu talagalay in uu noqdo kan ugu weyn uuna mashquulka badan caalamka waa barnaamij muujinaya hamiga weyn ee ay leedahay dawladda Turkiga waxaana si rasmi ah loo furay 1:00 duhurnimo balse ma dhamaystirno dhismahan ayaa la filayaa in uu ku baxo qarash ka badan 12 bilyan oo dollar waxaana loo kala qaaday 4 qaybood qaybta hore ayaa la dhamayn doonaa dabayaaqada sanadkan balse muranka ma marna bishii September dad ka badan 600 oo qof ayaa la xiray kadib markii ay shaqaalaha ka dibad baxeen goobta laga dhisayo madaarka cusub ugu yaraan 30 qof ayaa dhintay ayaga oo ku jira shaqada dhismahan markii la bilaabay 3 sano ka hor in ka badan 20 shaqaale ayaa weli xiran oo ka qayb qaatay dibad baxyo tira intaa ka badanna shaqada ayaa laga eriyay dawladda ayaa ku doodaysa in dadkaas ay ku lug lahaayeen falal daandaansi ah oo ay wadeen koox yar biz bu yasal haklarımızı talep ettiğimiz için maalesef waxaana lagu eedeeyay inaanu isticmaalay xuquuqda aanu leenahay ee dastuurka waxayna ugu yeereen basaasiin ajnabi ah waxay yidhaahdeen waxa gardaraystay xooga shisheeye haddii aanu rabno inaanu ku shaqayno kuna noolaano xaalad bani'aadnimo waa dembi ayay yidhaahdeen haddii ay sidaasi tahay dembigaasi ma joojinayno xarunta cusub ee laga dhisaya garoonka ayaa ku taal bartamaha kaymaha waqooyi taangiga oksijiinka ee Istanbul kaymahan harooyinkan iyo meelaha ay biyaha fadhiistaan ayaa hoy u ahaa dhir naadir ah iyo duurjoog taana waxa ay sababtay in dhaliilo la soo jeedi aynı zamanda dadka deegaanka ilaaliya waxay leeyihiin dabacadeeye iyo shimbiro dawacooyin iyo yeey dhammaantood halis ayay ku jiraan dhismahan ayaa saameeyay dhaqaalaha Turkiga dawladdana waxa ay doonaysaa in ay samayso istiraatiijiyad dhanka duulimaadyada ah taana waxa fura u ah garoonkan cusub bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka dunida ee maanta madaxweynaha la doortay ee Brazil Bolsonaro ayaa sheegay in uu wax ku xukumi doono isagoo oo raacaya Bible-ka iyo dastuurka laakiin waxa intaa uu ku daray in aan loo dulqaadan doonin fikradaha garabka bidix siyaasigan garabka midig ah ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee lagu celiyay 5% codadkii la tiriyay dadka ka soo horjeeda isagu waxay sheegayaan inuu tixgelin waayay dimuqraadiyadda oo uu jecel yahay kaliya hore aflagaadeeyana dadka laga badan yahay hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in ay ka degi doonto xilka gudoomiyaha xisbigeeda midigta dhexe ah ee la yiraahdo Christian Democrat waxa ay xilkaasi haysay 18 sano laakiin ma u tartami doonto in loo magacaabo marka uu shirku isugu yimaado ururkeeda bisha December waxay Miss Merkel ay doonaysaa inay si hogaamiso wadanka haddii aanay doorashooyin xilligoodii laga soo hormariyay dhicin ilaa dhamaadka waqtigeeda oo ku beegan 2021 hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in ka badan 90% carruurtu ay jiidaan hawo wasakhaysan in ka badan nus milyan ayaana sanad walba u dhinta arintaasi awgeed warbixin cusub ayaa ka digaysa cawaaqibka mustaqbalka fog ay yeelan karto hawada wasakhaysan iyo sida dadka ay uga qaadi karaan cudurro xagga wadnaha la xiriira noloshooda dambe waxaana ay sheegayaan in carruurta saboolka ay halistaasi ku badan tahay bandhig dhalinyarada lagu wacyigelinayo oo laga wacyigelinayo dhibaatada qabyaaladda ayaa magaalada Hargeysa uu ku qabtay fanaanka Maxamed BK heese ka hadlaya dhibaatada qabyaaladda ayuu ku soo bandhigay bandhigaasi wariyaha telefishinka BBC ee magaalada Hargeysa Sadiq Maxamed Bulmad ayaa fanaanka la kulmay barnaamijku saaka waxa uu wacyigelin waxaan ka wacyigelinayaa dadka qabiilka qabyaaladda in laga tago qabyaaladda
qabyaaladii ayaa dadkii saamaysay markaa sidaa darteed inaanu dadka aan wacyi geliyo oo heesa qabyaalada ku saabsan u qaado oo ay ka doortaan qarannimada qabiilka. maxamed saciid cabdi saaka bal waxaad ii sharaxdaa barnaamijkan waxyaabaha aad ku soo bandhigteen. waxaa ka mid ah heesa jacayla iyo wacyigelintiiba waan u sameeyey bulshada waanan tegaya haddii la yidhahdo goobo kalena haddii la yidhahdo. maxay tahay ujeeddada kugu dhalisay inaad barnaamij noocan oo kale aad qabato? waxaan noo baxay waddankii wuxuu noqday qabiil qabyaaladii baa laga hormarinaya wax kastoo la qabanayo bulshadiiba 100% waxa soo dhex galay waxa marka waxaan aan u goostay dar ilaahay inaan meel kasta istaago inaan ka baabi'iyo bulshada intii aan ka gaari karo ilaahay baa wax baabi'iyay intii laga gaari karo inaan ka wacyi geliyo anigoo u dhex gelinaya heesii ay jeclaayeen jacaylka. ma laga yaabaa inaad sii wado wacyigelinta ku saabsan la dagaalanka qabyaaladda goob kasta oo Soomaaliland ku taanle intii aan ka gaaro waxaan samaynaynaa waqtiyo munaasaba sida gelinka dambe ama gelinka hore waqtiga inoo saamaxo inaan wacyigelin u samayno bulshada. maxamed bk oo u waramayay Sadiiq Maxamed Burmad. mar walba waxaad nagala socon kartaa boggayaga BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqayn dheeraada iyo wararkii ugu dambeeyay. si aad u hesho wararka Soomaaliya iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyay nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram-ka. wali waxa inoo soo socda oo qaybta dambe ee barnaamijka caawa aad ku daawan doontaan fanaaniintan u heesaya ciyaartooy Soomaali ah oo dalka ka yimid wadamada Yurub oo xalay kulankii ugu dambeeyay kooxda horseed kula yeeshay Muqdisho. qaybta ciyaaraha ee dambe ayaad ku daawan doontaan wax yar kadib ayaanu isku soo noqon doonaa. wali waxaad daawanaysaan caawa iyo caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale balan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn caawa. saraakiisha waddanka Indonesia ayaa sheegaya inaanay filayn inay helaan dad ka badbaaday diyaarad rakaab oo 889 qof oo ku dul burburtay saaka badda wax yar kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha ee Jakarta. madaxweynaha waddanka Turkiga Erdogan ayaa daahfuray garoon diyaaradeed kii ugu ballaarnaa oo magaalada Istanbul uu ka daahfuray bilo ayayna qaadanaysaa in uu howlgalo garoonka oo muran badan uu ka taagnaa. waxaa la xaqiijiyey in milkiilaha kooxda kubadda cagta ee Leicester City uu geeriyooday markii ay dhacday diyaarad helikobtera oo uu lahaa sabtidii siday. Wichai Siwatana Baraba wuxuu ahaa 60 jir bilyaneer ah oo iibsaday kooxda Leicester sanadkii 2010 wuxuuna galiyay guushii markaasi ay ka gaareen horyaalka Ingiriiska uu maalgeliyay 2 sano ka hor. waxaa la geeriyooday 2 ka mid ah shaqaalihiisii duuliyihii iyo qof kale. Yasmiin Axmed ayaa ka waramaysa. waa koox kubadda cagta ah oo tiiraanyaysan. taageerayaasha Leicester City ayaa ka tiiraanyaysan geerida gudoomiyaha kooxda kaas oo gacan ku siiyay inay ku guuleystaan horyaalkan Ingiriiska. halkani waa goobta ay diyaarad ku dhacday. waa bannaanka garoonka King Power wax yar uun kadib markay kacday habeenkii Sabtiga. 4 qof oo kale ee diyaaradda ku jiray waa duuliye Eric Swaffer iyo xaaskiisa Isabella Rosa Lekovic oo iyaduna ahayd duuliye tababaran. 2 xubnood oo ka tirsan shaqaalaha Vichai Srivadanaprapa ayaa sidoo kale ku dhintay shilka. taageerayaashu waxay halkan saareen ubaxyo ishaalan si ay u sharfaan milkiilaha kaasoo saameyn weyn kooxda ku lahaa. iyadoo waxba aanan ahayn ayuu iibsaday City waxaana dhabtii qabaa in asaga uu sabab u ahaa in aan ku guuleysano. qoys wax badan annaga iyo City u qabtay ayaan si naxdin leh ku weynay. waa dhibaato. waxa uu ku soo kordhiyay naadiga iyo bulshadaba waxay ahaayeen wax aad u wanaagsan. Mr. Srivadanaprapa wuxuu magac ku yeeshay ciyaaraha kadib markii Leicester City ay ku guuleystay horyaalka Ingiriiska. xubno ka tirsan kooxda ayaa tacsi u diray. Jamie Vardy wuxuu ugu yeeray haliyey. Christian Fuchs mahadcelin ayuu ku soo koobay. Harry Maguire oo kooxda dib ugu soo biiray wuxuu sheegay inuusan weligiis hilmaami doonin
taageerada guddoomiyaha iyadoo baaritaan lagu wado waxa sababay shilka tiiraanyo ayaa magaaladan ka muuqata waxay xusayaan haryey waxay xasuusanayaan maalmihii farxadda goordhow ayaanu eegi doonaa waxa uu ahaa tababarahaasi kooxda Leicester balse dhinaca magaalada Muqdisho koox ka socotay qurba joogta Soomaalida ee Yurub ayaa in ka badan 7 ku sugnaa Muqdisho waxaana ay la ciyaareen qaar ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee kubadda cagta oo xalay kulankoodii ugu dambeeyay ay la yeesheen kooxda Horseed waxaana looga badiyay 4-1 qaar ka mid ah dhalinyaradan weligood ma aysan arkin Soomaaliya qaarna Muqdisho waqti hore ayaa ugu dambeysay sidoo kalena qabanqaabiyaasha qaarkood ayaa waxay dalka ka maqnaayeenba muddo 30 sano ku dhow wariyahayaga Axmed Xaaji Xasan ayaa warbixintan nooga soo diray waxay u taagan yihiin ciyaarta kulankoodii ugu dambeeyay waxayna fooda darayaan mid ka mid ah kooxaha ugu adag Soomaaliya Horseed ka hor inta aysan imaan dalka waxa ay qabeen shaki ah in dhibaatada amni xumada ay tahay midda sababi karto inaysan suuragalin in kubad ay ciyaaraan balse xilli habeen ah ayay ku baashaalayaan garoonka Banaadir Stadium laakiin sidii ay filayeen ma aha sababtoo ah laacibiin badan oo ay soo kaxaysan lahaayeen ayay waalidiintooda u diideen inay Muqdisho soo aadaan shacabka jooga qurba joogta waxay ka aaminsan yihiin Soomaaliya dhibaato badan inay ka jirto qaxar inuu ku jiro dadkeena dhimashada taalaba joogto ah waalidiinta oo haddana aad noogu diiday ilmihii haddii aan kaaga sheekeeyo waxay ahayd taariikh dheer in muddo aan ku jirno inaan ilmo inta keenno dhib badan aan kala kulannay xataa hadda marka u dambaysa aan soo soconnay 5 wiil oo fiican aana laga reebay because safety ahaan iyadoo taasi ay jirto haddana kuwa badan ayaa ku soo dhiiraday inay mar uun soo caga dhigtaan magaalada Muqdisho waa kooxdii labaad ee qurba joog ah ee lagu casuumo garoonkan si ay u ciyaaraan kooxaha kala duwan ee magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya sanadkii hore waxa garoonkan lagu casuumay koox ka socotay dalka Australia taasina waxa ay muujinaysaa in Muqdisho ay soo jiidanayso indhaha ciyaartooyda Soomaalida ee qurbaha ku nool dabcan wax laga dhaadhiciyay ma ahan waa aragti arkeen dalka Soomaaliya inuu maanta horumar gaaray dhalinyarada ku nool qurba joogta aad iyo aad ay macnaha xiriir badan loo soo sameeyeen ayagoo la soo xiriir wasaaradda dhalinyarada isboortiga ee gobolka Banaadir xiriirka Soomaaliya kubadda cagta si ay u yimaadaan haddana sidoo kale ciyaaro kala ciyaaraan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya marka aad iyo aad anaga u soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waan rajaynaynaa in ay yimaadaan dhalinyaro kale oo qurba joog ah inkastoo kulankoodii ugu dambeeyay looga badiyay 4-1 haddana hamigooda oo aad u sareeya ayay ka anbabaxayaan Soomaaliya runta Ingiriiska meelahaas dibadaha markaa joogtay Muqdisho iyo wadanka waxaa ka maqlay waxyaabo badan oo iska qarax iyo dagaal iyo laakiin wallahi runta markaa labadan asbuuca joogay nabad iyo walaatinimo iyo dadnimo aan arkay aad aadna wax lagu farxo waa dhalinyaradii ay la ciyaarayeen waxay u noqdeen dhiirigelin waxayna la dhaceen ciyaartooda iyo xirfadda qurba joogtan wallahi dhalinyarta imaato xirfadooda aad iyo aad u wanaagsan tahay hadday tahay dhan kalsooni hadday tahay dhanka iska dhexgalka ciyaartooyda kale rag akhlaaqdooda maasha Allah oo ku faraxsanahay inay imaadaan wadankooda weyn laga fiicanna ma lahan waxa leeyahay ciyaartooyda kale qurbaha jirto ha soo booqdaan dhulkooda intii ay ciyaarta socotay heesaha iyo madadaalada garoonka kama aysan marneen si dhalinyaradan loogu muujiyo amniga caasimadda Soomaaliya Muqdishona waxa ay muujisay inay ku dhex nool yihiin laacibiin badan oo leh xirfadda kubadda cagta si xarago lehna uga badin karo qurba joogta Axmed Xaaji Xasan BBC Muqdisho bal haddaba maadaama caawa ay tahay qaybtii ciyaaraha aynu faaqidno warbixintaasi ugu dambeysay iyo warbixintii ka horeysay waxaan ku hormarayaa T Leicester tababarihii ninkii iska lahaa milkiilihii aan idhaahdee sabtidii ayuu ku dhintay marka Dayson oo ciyaaraha ka faallooda stuudiyaha iminka la jooga Dayson ninkan maxaan ka naqaanaa ninkan saan ognaa waa ninka Leicester oo iska loo gatay 2010kii dhibaatada intaysan dhicin ka horna waxay la ciyaarayeen West Ham oo
gool ayaa lagu lahay oo xaalad adag ayay ku jireen Leicester laakiin markay 90 daqiiqo mareysay ayaa Ndidi gool u dhaliyay oo farxad leh oo barbardhac ay gashay hal saac kadibna waxaa yimid arintaana timido helicopterkii lahay inuu la dhacay oo dhacay marka ninkaana waa helicopter markay garoonkii ka dhex duushay garoonkeena kusoo degtaa haye markaas hal saac kadib markay ciyaartii dhamaatay ayaa dhibaatadan ay dhacday xaqu markay ku dhacday marka diyaaradu waxa leeyahay meel oo baabuurta lagu oo parkinka la dhigto oo banaanka ay ku dhacdaa leeyahay laakiin wax walba haatee ninkan waa ninkii suurtageliyay kooxda Leicester Ranieri keenay inay horyaal qaado adduunkana laga barto Leicester inay tahay koox taasoo suurtagelisay Manchester United City Liverpool Man United inay ka koob ka qaadaan ayagoo jooga 2016 dadkaasoo awooddaas leh muqdisho ciyaarteeda hadaan u galno koox ka tagtay waliba in UK iyo wadamadan qurbaha waxay tageen wadankii laakiin waa laga soo badiyay maxaa dhacay taas wax dhibaato uma arko waxa farxadda ugu weyn waxay tahay dhalinyaro Soomaali oo qurbaha ku dhashay ama ku koray in la wado dhalinyaradana meel laga kala kankeeno ma aha sida kooxda ay la dheelayso horseed oo diyaarsan oo isla tareen garayso ama tababar dad xataa oo meel laga kala keenay si kasta u fiican xataa waxay u baahan yihiin inay isla qabsadaan taas guul ayay gaareen laakiin dadka ayagana Yurub ama qurbaha ku nool ayagana waxa looga baahan yahay markood in casuumad u sameeyaan haddaan bilowno aan marka guda galno ciyaarihii horyaalka Ingiriiska ee dhacay toddobaadkan bal haddaad noo dulmarto dhammaantood ciyaarihii toddobaadka dhacay ciyaar aad iyo aad u fiican ayaa dhacay taasoo Burnley 4-0 gurigooda ay ugu adkaatay Chelsea taasoo hasaar uusan joogin Crystal Palace oo guuldarrooyin badan la kulantay gurigooda ayay waxay barbardhac la gashay Arsenal oo 11 ciyaar isku xigto soo adkaatay Man United ayadana waxay gurigeeda uga adkaatay Everton taasoo Lukaku oo dhaliyahooda weyn ahay la fadhiisiyay oo guul ayay soo gaartay ciyaarihii caawana waxa wada ciyaari doona ciyaar aad iyo aad u weyn ayaa waan gartay marka haddaan dul marno marka ciyaarihii taas Manchester United Everton aan eegno Lukaku waxa la leeyahay lama safina maxaa dhacay Lukaku sababta weyn oo loo safin waxay tahay wuxuusan dhalin 9 ciyaar gool muusan dhalin 9 ciyaar oo soo 9 ciyaar nin dhanoo numberka 9 ka dhilo goolay laga rabo oo gool dhalin laga rabo oo 75 milyan laga soo bixiyo waxba dhalin mid kale Lukaku kubada dheer ayay dheelaan oo celiyaa oo ku celiyaa laakiin Rashford waa wiil yar oo orod badan kubada markii la sii geeso u dhaqaaqa wax muusan dhalin laakiin waxa u malaysaa asiga iyo Mata iyo Marshall markii hore aadeen inay ka fiicneed Man United ay ka dhaqaaq fiicnaayeen Man United laakiin sidoo kale waxa loo dhigay rigoore lagu muransan yahay Soomaa ciyaartii taas waxay aad qalad oo galay garsoorihii Jonathan Moss sababtoo ciyaartooyga qaladka ku galay Marshall ayaa qalad lagu galay Idris Gana ayaa ku galay Idris kubadda ayuu taabtay sharciga wuxuu leeyahay haddaa kubadda taabatid qalad ninka si kasta uu dhaco rigoore ma laakiin Everton way ciyaartay Man United waxa u malaysaa inay ka soo kabsatay waan gartay Arsenalna waxa way badisay Arsenalna barbardhac ay gashay oo waxa u malaysaa guuldaradii guushii 12aad gaar rabta laakiin Crystal Palace ayaa meeshaas ku hakisay waan gartay ciyaarta caawa hadaan eegno oo nagu soo fool leh Man City iyo Tottenham waa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan oo wararka waxa u malaysaa Dal Ali iyo ciyaartooy badan inay ka maqan yihiin Tottenham laakiin waxa la leeyahay caawa way ciyaarayaan City lafteeda Kevin De Bruyne ayaa soo noqday oo caawa inuu bilaabo raba City-na saan la socon horyaalka waa laga qabsaday oo horyaalka waxa hadda maanta caawa hoggaanka u haya Liverpool Chelsea City saddexaad ay u dhacday City marka waxay ku qasban tahay inay meesha guul weyn ay ka gaarto weerarkoodana waa la soconaa City kala joogsi inuusan lahayn aad iyo aad baad mahadsan tahay Maxamed Axmed Deysane oo arrimaha ciyaaraha nooga faallooda oo barnaamijka nagala qayb galayay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii caawa waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaanu markale dib u kulmayno dhammaantiin waxaan idinka tagayaa habeen wanaagsan